gifted and Safi. Ramadan Mubarak. Holy records. Ramadan Mubarak. لكل مسلم. شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. The Quran descends in this holy month. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. walaalayaal waxaynu ku guda jirnay duruusteenii ramadaanka aan uga hadlayn insha allahu tacaala taxanaha noo ahayd annagoo laba duruus kusoo bixinay waajibnimada ramadaanka insha allahu tacaala. maanta waxaanu qaadan doonaa fadaa'ilu ramadaan insha allahu tacaala, in qofka muslimka uu soono ama bisha ramadaan uu soomo waxyaabaha fadaaisha ay ku jirto insha allahu tacaala ayaynu hal iyo laba ka tilmaami doona insha allahu tacaala. annagoo kasoo hadalnay in bil cibaado ay tahay, annagoo kasoo hadalnay in dadka muslimiinta lagu waajibiyey oo ay tahay bil in la akhriyo qur-aanka ay mudan tahay insha allahu tacaala, ayaa maanta waxaynu ka hadlaynaa insha allah hadduu ilaahay na karsiiyo waxyaabaha fadaa'il ku dhex jira bishan insha allahu tacaala. rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay kullu camali ibni aadam yudaacafu alxasana bicashri amhaaliha ilaa 700 dicf. bini aadamka acmaasha uu sameeyo dhan waa loo laablaabi oo xasanada waa loo laablaabi ilaa iyo 10. halka xasana maxay la mid tahay? 10 xasanay la mid tahay. ilaa iyo 700 ilaa iyo 700 oo dicfin ayaa looga dhigayaa, ilaa iyo 700 oo laalaab io kasii badanba insha allahu tacaala waa loo laablaabi. laakiin ila sawm ayuu yiri allah subxaanahu watacaala, ilaahay wuxuu yiri soonka keliya ayaa laga soo reebay. fa inahu lii anaa iska leh ayuu yiri soonka, wa ana ajzii bihi anaana ku jaazinayo, anaana ku abaalmarinayo addoonkayga. sababtoo ah bini aadamka acmaashoo dhan uu sameeyo halka xasano hadduu la imaado maxay tahay? meesha ugu yar maxay tahay? waa 10 xasano ayaa looga dhigaya, waa loo laablaabi. haddii ilaa iyo 700 ilaa iyo 700 ayaa la gaarsiin insha allah. laakiin soonku waa ka duwan yahay, waa loo laablaabi, laakiin alle unbaa og jazihiis iyo wuxuu yahay insha allahu tacaala. annagoo ka arki doona albaabaha jannada kamid ahna dadka saa'imiinta loogu wici doono insha allah. marka soonka wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala anaa iska leh ayuu yiri, anaana jaazinayo. allahu akbar. maxaad u malaynaysaa qof oo degmadaadii ka tirsan ama meeshaad degan tahay madax u ah hadduu ku yiri shaqooyinkaasoo dhan waxa adi aa qabato, hadduu ilaah yiraahdo waa lagu laablaabi intaasa lagu siina, laakiin shaqadaas hibil adi aa qabanayso waa mid ani ii gaar ah, abaalmarin gaar ah ayaan ku siin doonaa oo arintaasoo dhan ka fadli badan, ka weyn, ka qurux badan. maxaad dareemi lahayd? allihii khaaliqa ahaa oo na abuuray ayaa hadda maanta wuxuuna dhahayaa soonka anaa iska leh, anaana idinku jaazinaya insha allahu tacaala. sababtana wuxuu ku sheegay allah subxaanahu watacaala, adoonka wuxuu yiri iyada wuxuu ka tegaya shahwatahu, shahwadiis ayuu ka tegayaa. hadduu xaas uu leeyahay xaaskiis ayuu ka tegay. waayo soonka waxaan ognahay qofka sooman waxyaabo badan oo magaranaysaa xalaal u ahaa in laga xaaraantimaynayo uusan isticmaali karin. wixii horey xaaraanta u ahaayna waxaweye waa taas wayba kasii weyn tahay. marka shahwadan waxaweye waa qofka haddii xaas uu leeyahay xaaskiisa uma tegi kariyo, haddii gabadhu nin ay leedahayna ninkeedii uma tegi karto. marka waa shahwadiisa waxaweye waa wuxuu ugu tegay allah dartiis, allah subxaanahu watacaala dartiis ayuu ugu tegay, asigoo jecel inuu la damaashaado zawjkiisa ama gabadhana zawjadiisa ama gabadhana zawjkeeda inay la damaashaado. min ajli
ilaahay dartiisna ay ugu tageen oo darteeda ay ugu tageen uu yiri wa ta'amuhu mad'amkoodii ama cuntadii cuna lahaayeen waxay cabi lahaayeen darteeda ugu tageen uu yiri min ajli Allah subhanahu wa ta'ala maadaama shahwadoodii iyo waxay cuna lahaayeen waxay cabi lahaayeen ay darteeda ugu tageen Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ana awaal marinaya haduu ilaahay yiraahdo fadaaisha soonkay kamid tahay marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri rasuulka alayhi salatu wasalaam lisaa'imi farxataani qofka sooman oo qofka sooma wuxuu leeyahay laba farxadood ayuu leeyahay farxatun cinda fitrihi markuu afura agteeda wuu farxayaa qofku wuxuu dareemayaa nashaad tiro badan fircooni ayuu dareemayaa wuxuu dareemayaa culays tiro badan oo ka dhacay wuxuu dareemayaa farxad zaa'id ayuu dareemayaa afuritaankan marka laba dhinac wuu noqonayaa insha Allah maqrib markii la adimo dadku waad garanaysaa dadka maalintii oo dhan soonnaa maqrib markii la adimo wajiyadoodii xataa way ifayaan waa farxada ka muuqato iyo iftiin waxyaabahaas oo dhan waxyaabo dabiici ah ilaahay ku soo dejiyay waa xilliga ciida la gaarana waxay tahay ayagana way kasii farxad badan yihiin waa maalinta ugu damaashaad badan yihiin oo alla ay weynaynayaan marka waxa weeye waa farxad zaa'id ah iyo wajiyadooda waxaa laga dheehan karaa iftiin tiro badan inuu ka baxayo ayagoo farxad zaa'id ah muujinayo taas li ajligeeda waxaa kasoo horjeeda qofka musoomaha ah markii la adimo maqribkii oo la afurayo wuu naxayaa maanta dhan waxa wax nacfi leh hataa ma aadan cunin calooshi ayaa ku xanuunayso waa kaasa wuxuu leeyahay dadkii Soomaaliya saas u yaalaan go'aan wuxuu qaadanayaa biri inuu soomo haddana markii oo ii sheeg bisha ay dhamaato dadka ay ciidayaan asiga farxadaasi maxay tahay wajigiis ayaa madow wuu ka naxayaa bishii way soo dhamaatay dadkan way ka caafimaad badan yihiin maanta oo soo soomay wayna ka qurxoon yihiin oo isleeyahay adigana maanta saana u taala caafimaad darri iyo waxbuu ka sii qaadaya marka insha Allah ta'ala waa waxyaabaha ugu badan oo hadda fadaaisha bisha Ramadaan oo farxada oo qofka uu ka helayaa wa farxatun farxana inda liqaa'i rabbih markuu rabbigiisii oo la kulmo ayuu farxad kale ayuu dareemayaa waa farxadii labaad waa maalinta qiyaamaha markuu ilaahay la kulmo oo hadda noogu soo ballan qaaday soonka ana askale anaan idinku jaazinayo oo yiri ayaa maalintaas dhayso in ilaahay Allah subhanahu wa ta'ala adoonkiisii uu jaaziyo oo markaasi uu awaal mariyo insha Allah ta'ala wal khulufu fihi at-tayyib 'inda Allah waxyaabaha xayaawada ama riixda afkiisa kasoo go'aysa qofka sooman waayo qofka sooman waxaan ognahay in waxyaabo oo udugooda aanan fiicnayn afkiisa kasoo go'ayaan laakiin alla agtiisii way ugu dayib badan tahay ugu fiican tahay ugu wanaagsan tahay ugu caraf badan tahay min riixil miski barfuunkan ugu caraf badan miskiga marka insha Allah ta'ala miskiinkan hadda anaga aan isticmaalna maahan waxa waa jannada midka yaalo aad iyo aad u udgoon yahay insha Allah ta'ala marka bisha Ramadaan aad iyo aad ay waxay u leedahay fadaa'il gooni insha Allah ta'ala inaan ka wada faa'iideysano ayaa loo baahan yahay insha Allah ta'ala xadiis kale hadaan ku darno haduu Ilaahay yiraahdo waqti haduu noo saamaxo Allah subhanahu wa ta'ala adoomadiisi mar oo abaal marinayo jannada ama markii qiyaamaha la gaaro albaabo jannada ay leedahay ayaa jirta insha Allah ta'ala xadiisku dheeriyahay haaf ayaanu ka soo qaadanayna insha Allah فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة قفك أهل الصلاة كأه صلاة دكانة وحال لوغي يري الباب الصلاة لوغو مقعاو أو الجنة هل كان كسو قل أيال اللي هاي مركا تارك الصلاة كأيا ماشا كبحي ومن كان من أهل الجهاد قفك أهل الجهاد كأها إلهي درس ودقال ما يدعي وحال لوغي يري من باب الجهاد الباب كجهاد كأيا لوغي يري أو الجنة كمذا إن شاء الله أنت كسو قل أيال اللي هاي ومن كان من أهل الصيام قفكي أهل الصوم كأها أو صوم جري دعي وحال لوغي يريا من باب الريان باب كان الباب كان ريان وجنة كيال أيال لوغي يريا مركز اللي هاي هل كان كسوقل ومن كان من أهل الصدقة قفكي أهل الصدقة أهان وحال لوغي يريا دعي وحال لوغي يريا من باب الصدقة أيال لوغي يريا markaas arintii waxaa la yaabay la weynaatay Abu Bakar radiyallahu anhu ayaa la weynaatay insha Allah ta'ala kadibna wuxuu yiri bi abi anta wa ummi ya rasuul Allah
hooyaday aabahay kugu furtay qof ma jira oo macnaha qof loogu wacay albaabadaasi wax dhib ah korkiisa ma ahaanuu yiri fahal yadcu ma jira axadun oo min tilka alabwaabi kullaha dhammaantood qof loogu wacay ma jira uu yiri kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri nacam wa arju waxaana rajaynayaa an takuuna minhum abubakar oo in adi aad ka mid noqoto allahu akbar allahu akbar marka insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysano bishan ramadaan fadaa'il goynay leedahay insha allahu tacaala duruusteynina waxa waye waa taxanaynu ahaan doontaa insha allahu tacaala 10 daqiiqo iyo 9 daqiiqo ayaana ka faa'iidaysan doonaa haddana daraasadeena ama duruusteeni ramadaaniya meeshan ayay noogu eg tahay hadduu ilaah yiraahdo meel walba idinku ay joogtaan ilaah idinku xafido kuwii soonkooda la aqbalan allah naga dhigo inta xanuunsanna allah caafiyo inta dhimatan allah u naxariisto hada wabillahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam